laamaha ammaanka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxay maalmihii ugu dambeeyay howlgallo ka sameynayeen gudaha magaalada Dhuusamareeb. Taliyaha ciidanka booliska Dhuusamareeb oo ka warbixiyay howlgalkaas ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaasi lagu soo qabtay dad laga shakisan yahay. howlgallo lagu lagu xaqiijinayo amniga caasimadda, lagu xaqiijinayo shaqooyinka socda iyo waxa socda magaalada wala soconayo, lagu fiiqayo beensalada muraayadaha madowba dadku wataan sida sharci darrada u saarteen dhammaan runtii shaqo fiican ayaa ka qabsoontay ciidankuna way ku guuleysteen. waxaan rabaa inaan reer Dhuusamareeb ugu baaqo inay la shaqeeyaan ciidanka amniga si hore ula shaqeey jireenba ayaguna si amni guud aan u helno inaan si guud u wada shaqeyno taas baana ka wada shaqeynaa hadii alla idmo dadka deegaankana waxaan u baaqaynaa inay ayaguna ay dalkooda dadkooda ilaashadaan wixii ay u arkaan in dib ku yihiin ay la soo xiriiraan laamaha amniga. howlgalkii xalana runtii ciidamadu waxay u wadeen qaab oo ka duwan qaabkii hore oo ah in la sii dardargeliyo runtii aad loo adkeeyay wax walbana lagu la soconayay runtii waan lagu guuleystay. Ilaahay baa ku mahadsan. muhiimaddu waxay ahayd saaka intaas inaan ka warbixino dhammaanna waxaa lagu jira ciidamada heegan buuxaan gelinay shaqooyinkii loogu talagalay runtii si fiican ay u wadaan. haddana waxaan sii wadi doonaa hadii alla idmo in aan oo sii socdo howlgalkaas. wallahi wax lagu soo qabtay oo badanaa jira dad laga shakiyay iyo dad qoryo watay intaba waa lagu soo qabtay. waxaan la marsiinayaa habkii loogu talagalay oo u degsanaa processkii la marsiinaa hadii alla idmo u degsanaa. dad badan oo runtii oo aan wali la qaban waa jiraan oo hadda targadaha oo dadka lidka ku ah amniga ama muqaadaraadka dhibaatada wax dadka ku wada deegaanka oo noo qorna way jiraan runtii hadii alla idmo ayagana aan doonayna insha Allah. sida guudba oo ciidamadu isha u hayeen waa run waxyaabaha deegaanka ku ah xaalufinta dhirta la jaro waxyaabaha ciidamadu la dirayaan kamid yihiin beensalka ciidamadu waxay la dirayaan kamid yihiin hubka si sharci darrada magaalada lagu wato oo shaatiga cad iyo qorga la isku wataan waxyaabaha dadku la dirayaan kamid yihiin iyo hub waliba guri yaala intaba. marka si guud ayaan howlgalkaas u saabsanaa. marka dhuxushiina waa lagu qabtay dad badan oo ciidamo qoray watana waa lagu qabtay kuwo haddana waxaan u wadegaynaa qof walba inay habka sharciga u hoggaansato oo waxyaabaha mar hore laga digay ay qof walba ka digtoonaataan ayagana u sheegaynaa hadii alla idmo. Fartuun Maxamuud Axmed, Fartuun Filson, Somali Cable TV, Dhuusamareeb.